baarig farxiyo wuu dilay daawud xafarna qolka daahir buu soo qabsaday wuu dilay buu yiri waanan xirnay farxiya inay maanta inoo soo oydo baynu u sheegaynaa dariiqyada iyadu isku furtay markii hore anagu gabadha waa gabar dimaashadaya waana ka xunnahay baanu taaganahay mar walba waanu ka xunnahay laakiin wixii haddii qabiil laga dhigo si xun wax loo raadiyo sida xun wax loo Somaliland ee cadaaladkan Somaliland dadku waa loo siman yahay dadkuna waa muwaadiniin waa la damiintay banaankaana la geeyay banaankuna fadhiya caawa ما هي أنا سري عادي نين أقدر لين نين كلا دمينتو قبل يدلين لو دمينتو إلهي قبل كسا هذا سؤال شاسكلي يجواب ولا waxa lagu damiinanaya hadaan naf goyn ay naftu go'in oo in inta wax lagu xitay ilkaab ku ka jabiye maxaa ku dhacay caaday dadkii nimankii damiintay manaalay suldaamad nimankii damiintay ina ka yar banaanka u saaray nabadoonadii wasiiradii iyo xildhibaanadii damiintay baa walaal waxaan gabadhana damaanad qaaday inay xaal marin imaamad karta laga saaro wixii ay nabaradeedaas ay leedahay walaal hadii la damaanad qaado gabadha la raali galiyo may soo fariisan lahayd siri caaday waxay soo fariisatay walaal ay aantan oo dhan dhakhtar bay ku jirtay gabadhu dalooyin baa hadda shirka ka galay oo siday sheegayso waan horaan maqlay ma fahamtay afka hadda nabar baa ka gaaray gabadhu way dilan tahay qofka bilaadanka lama xaqira ma ogtahay wuu dilay nabar wuu gaartay waa dhaawac oo gabadhu waa dhaawac laakiin anagu dhaawici walaale geed idil baan oo naf go'day baa laga garaabaa meen ahayn deynaadee dadka xumaati jirin laakiin haddaad wixii qabiil ka dhigtid aad qabiil masaakiin oo waxba ku geysana maanta dhan midgayow gud ma yaada anigu sir yaade boqorada hargeysa waa fahmay waxay tiiri daa kun qolol baa laga soo furta wiilka lagu nasabadiyo caayay laakiin anagu anagu waxaan ka hadlaynaa wiilka gabadha baynu inagu ka hadlaynaa inagu kuma jirno shaqadaas muxuu u dilay maxaa walaal inanka yar waxaa la yidhi anigu sheekada maalin hore oo wallaahi laba bilood ka soo ayaantii sheekaduba dhacday hadda bil iyo wax ka soo wareegeen baa wallaahi nin weyn oo loo qaateena oon ahayn madhibaan oon ahayn gabooye oon ummadda ilaahaya baa wallaahi wuxuu ku yidhi gabadhii wiilku walaale way isku dhaceen wiilkuna wuu masayray masayr buu ku dilay masayr buu ku dilay qofka hadduu masayrana ninku hadduu masayrana nafta ku dhaafinaya ilaah baa dayna dilaya walaal xidigtooda oo muxuu masayr soo tuu shaqo tagtay walaale suudasho soo daldashay Nairobi geysay Nairobi intay geysay haddana soo celisay gacalkii u geysay arooska geysay soo baashaalanay soo hoydeen walaal fanaaniin baa waxa soo lacagtoodii budgetkooda qaadanayeen meesha ka soo heesaanba ma baraamur tuugaa bay ku joogaan walaal isna dhankiisu jiidanay codka iyaduna dhankeeda jiidanaysa walaal ayaduna dhankeeda jiidanay dadka xageebay la soo heeso kula dad baa loo geeyay midda kale maxay ahaatay inuu markuu saa u dilo qarrad baa ku jajabtay waxa magaxoo dhan baa laga guray inuu sidaas oo dhan waa lagu galaday qof dumara ma qurux badna moogtahay walaal waaba ina yar maxay iska celin weeyeen ya udhiib boqorada hargeysa oo wardaxaashi baad ka soo dhex gasheen horta wardaxaashaad ka soo dhex gasheen maysteena daa qalbi oo markaa horta qof caloosha ka soo dhacday dukii madakii kala la fiiriyaa dad oo baa ku tirkuteen social media keena mubaarak farxiyo wuu dilay daawud xafarna qolka daahir buu soo qabsaday wuu dilay buu yiri waanan xirnay bal hadda u fiirso meeshii lagu dilay nin abwaaniye dad baa kala qabtay laakiin hadda iyada waxay tiri qalbu igu xidhay 4 saacadood bii garaacayay ilaa inta kaadidu iga imanaysan uu dilayay eeg galabta toobigii fadxiyo oo baan inagu falaqaynayna dadkuna falaqaynayna laakiin isagu wali muu hadlin manuu soo fariisan qof hadaad aragto dilankii kale la eegaa isaguna wuxuu ku hadli doonaa waynu dhageysan doonaa waana nin iyo naagti cala ma aha nabadna ma aha yukayo dawladi ka jirto oo inda buluug la leeyahay farax kaftan meel walba la gooyay walaal oo koona kasta lagu dhufta oo inuu dhageynaha ka cad intu soo itaabsiin noo soo duubtay hadda ma fahmaysaa ma inuu qaldan yahay oo gabadhii ehel iyo xigaalba uga gooday uu inaan kaa yarde ku kibrayu dilay hadduu masayro warqadeedu iska siin lahaa wuu isaga tegi lahaa adduunyada markuu ilaahay dhigu aadmiga dhigayna asaagiino adoonsada looma abuurin hadduu fahmi waayo inuu ka dhaqaaqay xaq u lahaa xidigtahay horeba way isugu dhaceen bir dhaweyd way kala saartay fiidiyoyada gadaal bay isugu soo noqdeen laakiin inuu dilo qofka mara dilo waa qalad soomaali haddaba soomaalinan kibeeriyanaysa dir iyo daaro digil iyo midhiflee waa la falaqayn karaa laakiin qofka abiya sin joocaaya anagu maalintoodun baanu ka goynayna raggoodu baanu ka jaraynaya fanaaniintooda waa intaa muhiimadu farxiyana waxaan leenahay waxa ku dhacay farxiyo fiskay waan ka xunnahay waana gabadh Soomaaliyeed waana gabadh fanka in badan ku soo jirtay say sheegtayna hargeysa oo soo heesaan joogaabay tir cadaaladayda waan ka helaya ilamana aha anu hargeysa wad meesha inta ku soo leekaadeen ka imi hadduu nabar weyn oo jirriina ageysto xidigtay lama sii daayeen lamana damintaan 14 cisho rumaan soo liqi lahaa oo nabar weyn oo qodobay ama uu damad xaqaado rumaan ka soo liqay baan xabsi bilaa rumaan waa
ما يجبنا كوجا قري حتى هاس بسوق هذا قري أنت الموت قلي هاي قري بو كسر حاسة ولا على قري بو كسر حاسة ما فهمتي هاس بهذا سوق هذا ما هاس بس هو يدا هو قاضي ها هادو هاس سوق هذا ما والنتها أنا أركي هسه يس والله كوسا تقول أنت فرحية ها ما حيورانيسا ما يساقون بنركان ومال سيبنا وبدل الغوصة يسكتون صارتي ها قلبك كده قبل بالغ وحده حبس قري بو كجرا ما فهمتي مال يرى والله بدل الغوصة فرحية كما يرى قلبي يسافر فيسبوك لايف نو يسوق شي تيك توك لايف نو يسوق شي دكم داكم باي naga dhigtaa antu dhimi xaytimiisi hada ma fahantay nin iyo naagna cala ma nabadna ma UK iyo saa u shidan bu farax kaftan koora kasta ku dhuftaa mana la xidhin ninkii warqadoon baa looga qoray hadii wuxuu geystay dawladda Soomaaliland baa sharciga marsiinaysa laakiin boqorada hargeysa su'aal baan ku weydiinayaa sidii hablaha Soomaaliyeed oo dhan farxi faska u jecel yihiin maanta uga xanaaqsaneen inaan ka yar ugu wada xanaaqsan maanta uga xanaaqsaneen marka taqabiil ka timaado waanu ka xanaaqsanay waliba anagu ku khaldamay baan leenahay baastarka horena waanu u sheegnay anagu waa khaldan ها والله annabi ma jecli manaala in la dilay ma fahantay laakiin baasha markii qabiil laga dhiga dawlaal xiga ka xiga waranka xanaftiisa iyagu Axmed Dawlay gubeen dadkii gubeena looma dilin qalbi haday qabiilad ka dhigaan oo ninkan abiya sinjiya nasabnimo u caayaan haday laakiin Soomaalinimo lagu dhameeyo waa qaldan waana baastar saada logo saada qaadin nin iyo naagahan hadii loo wada loo falaqayo ninka loo karbaashiyay dibin ها ما أنا ما أدري بس هذه عادي يس لكن absolutely قبيل وقلت لكن أنا قبيل هان لو فلقيو قبيل هان لسك هذه حتى العايا ما أنت منها أنا قدن كملهن ما فهمتي كقارنا أنا وش كمس واحد قدبنا دتكو هذا ما تشيدنا ما ندوننا هو ما أنت تشيت تبري بالله تشيدنا هلا يسوقادون ويا مهمته كسعدا وأنا يدي سلامة يا na walaal horta idina aamusnaan mayso boqorada hargeysa ee dadka qaar isma jiidana marka leedahay walaal horta falanqa badan idinkama batimaado idina idinkama hadasho hadda ma fahantay reerka loogu jiid badan ee la jiidjiitay qol walba laga soo furtaana walaal waa annaga ismana daba orodna ismana daba yaan anagu qabiil uma dhageyso boqorada qalbi de muudka gal qalbi waa runa qolkaagu waa dadka uu ka furan yahay waa runtaa gal qalbi ma annagana ma falanqaysaanay jiniya falanqaysaan run baa sheegaysaan dhageyso hadda waa run isaaq ma ka soo furatid waligaaba isaaq ma falanqeyn hadaba sug walaal qalbi ma falanqeeyaan dadkaniba ma falanqeeyaan isaaqe jiniyo kale falanqeeyaan dadka TikTok joogaabe anagu waxaan idin sheegayaa walaal qabiil horta uma caayino wiilkan anaga qabiilka anaga hawiyana ma nihin wiilka qabiilkiisana ma nihin TikTokna qalbi waa laga hadlayaa afka yagana anaga leh because wixii meesha yimaada saa uga hadashaan qolaalka u soo furataan ugu baxdaan u dharqaantaan baa loo hadli karaa laakiin anagu cidna ma caayino reerka halkan la dubtay la daangeystaanay waa annaga walaal ismana daba orodno mana waliba idin hadli waaya ee waliba xagataan ee waliba qol walba laga soo furto ee waliba marna matashaan afkooda marna ku hadashaan qalbi jiirkaygii aniga ma jecli dadka inaan xagxagano falanqana waan ka tagay qalbi hadda sheekada qolka baan ugu yimi xidigta waan soomanaa laakiin waan garanayay waxaas iga raaci doonaanba because dadka qaar baa olole oo iyagu raba dadka 24 saac inay xagxagtaan dadka falanqeeyaan qolaal soo furtaan oo ay waxay rabaan sheegaan hadii wax yar ka yimaadaan saa gubta Soomaali oo dhan weeyaan reerka aan guban ee juuq hadii loo yiraahdo hadii la xagtiyo hadii la cunaba waa annaga walaal aw xorbaana u tihiin iyo xalaal cidna falanqaysaanaan ku xagan cidna falanqaysaanaan la hadlin cidna falanqaysaanaan ka hadlin cidna falanqaysaanaan luuq u gelin cidna falanqaysaanaan ku oran naga damiya cidna falanqaysaanaan oran naga qaboojiya dadka oo dhan laakiin falanqada kaligiin ma tihidin dad baa idinkula jira inanka maanu caayin weli maba hadlinba walaal dadka hadhowta jiidan doono jiita walaal waxa jiidanaysaa walba nala jiidanayay maxaa iga ka dhiisha aw hadda ana aamusanba waa la jiidanayay maxaa anigu ma cid baan caayay hadda na alxaasil iyo almuraad waxaan u sheegayaa walaal aan sheegaynaa anagu qabiil ma caayno qabiil uma bugno hadda ma fahantay laakiin waxaan sheegaynaa de wixii meesha yimaada hadii lagu eegto leeyahay ma hadli kartid waa dhibaato walaal wallahi bilaa waxaan uga tagay falanqadana waa waxyaabaha noocaasa caadi xataa uma hadli kartid walaal ma ba hadli kartidba 24/7 waa lagu sitaa la ismana arko adigu habeenkada hadashana Soomaali oo dhan way soo dabayaacaysaa dhibaatadaasaan arkay baa aniga wallahi bilaa anagu madaalacan baan dhalanay minkaar baan nagu dhacday ma odagaygi baan inkaaray ma ogi wallahi ma ogi walaal wallahi billahi xigti yomnaale ma aqaano minkaar baan nagu dhacday qabaar baan haysta walaal wallahi billahi talay bal fiirsado TikTok la ما قلت الفرصة خلفي هي waa ka soo noqon
waa ka soo noqonay ma jecelina Inkaar baa hadlo nagu dhacday oday baa anaga inkaar baaba na haysataa masiibaa nagu aabsatay waxaan u sheegayaa walaalle inanta farxiye aan dareemayo inay maaragtay 30 kiilkoodba ka maqan yihiin inankan iyadaa isku soo dhistay yar ee naaskeeda leeg ee waxaan ku yidhi labadeeda naas leeg ee waxaan ku yidhi ay dhali karto iyadaa midda walaalle kale intay fadxiya waxay tidhi kaba yare way ha inanka yaga wuu sixray bay inanteedu sixir wuu ma sixray jira jacaylkaa sixirka ah ee walaalle jacayl bahalkan jacaylka la yidhaahdo sixirka isaga ka daran horta jacayl ma garanayaan dadkan le iyadu way garanaysaa inkastoo ninba tahay gabadhaas oo ninowday oo ay hadda jacayl ba wax ka garanayn gabadha dhukura dheeman qalbi jacayl ba xog kama taqaano hadda xataa bay noqotaa beri hore inan leeg bay leedahay beri hore ka guuray xataa dareemihii baa ka guuray reerkan oo dhisan iyada waan usoo noqonaya reerkan oo dhisan bay ku dhegnaan jirtay iyada waynu galkataynu ka dejinaynaa laakiin farxiya inay maanta inoo soo oydo baynu u sheegaynaa dariiqyada iyadu isku furtay markii hore eeg waxay isku furtay markii hore wadooyin ay isku furtay maanta afka inoo soo xidhanaysaa inooma soo xidhan karto because dariiqaan la isku furin baa jira walaal waxa la yidhi ninkii maskorsaday isaga meleg marka hore waa inaad meel baydhsan seexato si aad u baydhsanaato in nin leeg oo garanaya halkay mudan tahay iyo waxay mudan tahay iyo qiimaheeda iyo qadarinteeda iyo qaayaheeda ay guursan lahayd walaal ama haddii run la doonayo weeyaan waxay noogu soo oydaa meeshan ma yaalaan ma fahmaysaa marka hore waa inaad adigu meeqaamkaaga garato iyo meeshaad adigu leedahay adigu tumaa tahay adigu halkeebaad leedahay halkeebaad u qalantaa halkeebaad wiilku leeg ninku leeg garanaya marwanimadaada halkaad waxaad ku saxan tahay kaa qaban kara ku leeg wiil yar xilligu doonu kugu dhooqaysan karaa kugu faraxalan karaa walaal kugu qubaysan karaa ina yar oo kaa yar markaad isku bahalkaysid oo isku soo dhistid ood adigu maxay tahay marba meel ku soo dhegdhegtid walaalle kulli fidma cinda waxa farxiya maanta haysta ayada walaalle meeqaamkeedii garan weydo wiil ka yar guursatay haddaynu runta u sheegaynaa oo weliba iyadoo ummadda u eeg isdhammaysay intay kiniinno isugu waday mise waaba isqashay ay inanka yar isa soo leekaysiisee ciddideeda leekaa ciddidiiba isa soo leekaysiisay waa lagu dilayaa ciddi hadda nin baad ciddiisu soo leekaysiisay almiinu ka xoog weynow qalbi almiinu xooggaagii lahow laakiin waxay isu soo yaraysay isu soo cataysay isu rifan iyo lisan isaga dhigtay oo isagii mubaarig is leekaysiisay walaal waa si wuu ka ilhelay markuu arkay inay uu maanta dili karo ay mafiiqis ka dhigtay buu waxaan ku yidhi kab ku garaacay kab teeda kale naftaadu halkay ku dhigayso ilaa ay naftu hadday xididka dambe kaaga jirto kuu kaaga dhuftaa lagaga dhuftaa lug markuu kugu dhufto lugta ku dhufo hadduu kugu dhufto haraatidaa lagu dhuftaa quraarad hadduu kugu dhufto waa lagu dhuftaa naftu intay laakiin maxaa tabaadahayd walaal waxaad tiri walaal macaan qaaliye waa lay jiiday baad tiri dirci baa layga bixiyey baad tiri waa kaajay baad tiri bal anigoo you think anigoo inta lay qaawiye lay jiidayo aan kaajayo markaa yaa joogaya wallaahi oo bila isaga xataa adkaysi badnaa qalbi waayo wuxuu eegitaanku ku eegayay something like that bay xarakada markaad dira shucuurtiisa adiga waa lagu dilayay haddaad arki lahayd waxa uu dareemayo adigoo kaajaya qabri dumay oo kaajaya ma aragteen idinku oo kaadida ma celin karo teeda kale qabrigu markuu dumo kaadida ma celin karo wallaahi bay ka tahay haye ma celin karo markaas sidee baan walaal la isugu kaaji karaaba marka horeba gufayskaygaan xidhanayaa dhexdaan xidhanayaa markaan arko inuu mubaarig igu soo socdo ilaa anaa isleekaysiiyey oo ka xoog weynaan waaye waa inaan wax sameeyo ugu yaraan haddaan itaalku meel xuni dhigay labada lugood baan ka gelaya intaan ruugaga dhigto bartaas intaan harim cadka sidiisii isu dhigo oon beerka dhigto labada ruug dhigto baan xiniiyaha ka buuxsanayaa dabeedna waan jiidayaa cabaadka sidii hal dhashay markuu u cabaado oon saa labada xiniyoodu jiido uu cadhadhaqdaa guro oo xidigtay derisku isugu kaya yimaado anigoo iska haya haddii halkaa qabatona raggu u cabaadaa meel kale ha ku dhegin ka taah badan jibaadka jaahay waxaan ku isu soo baxo jaarku baanayaa iga qabta halkaasaan haya hadduu igu fakadona awood ma hayee hala iga qabtaan leeyahay inta laakiin xariiq ima gaadhsiiyeen nabarka hore nabarka dambeeya horta walaal iguma dhufteen hadda ma fahantay marka farxiyo qalbi inuu maanta ilkahaagii orginaalka ah kaa rido isaguna saqafkii 34 xabee saqafka ahaa aad adigu gelisay uu sito horta cadaalad maaha waana qalad uuna kugu qaldamay cadaaladna wada helaysaa wadanka Soomaaliland dalka Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halka cod iyo dheer aan u marinayaa farxiyo inay cadaalad hesho say farxiyo dheema sheegtay dhukura dheema say sheegtay walaal cadaalad wada helaysaa don't worry about that
waddanka iyo dalka Somaliland cadaalad waad gelaysaa waa dalkaagii waa dhulkaagii walaalkeena cadaalad isagoon lagu tacadiin maanta you think inuu xamar joogay ka jeclaan lahayd ay gubto laakiin no way ma dhacayso taasi waxba wasansanqanaysa dukuradheemo way sansanqanaysaa saasay u sansanqanaysaa waxay deebisay rabtaa oo hadhowna bilaa cadaalad ku dhacdo ma jirto deebilaysma deebiyo Somaliland deebidi kama dhacdo dad la gubaa ma jiraan dadku cadaalad hadday islaayaan xitaa oo loo cadaalad falaa qalbi dukuradheemanay